السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دwow FN Academy waanigii ahaa walaalkiini Taamir Moxamed sida wad ognahay waxaan kusoo guda jirnay course-kii ahaa barashada software-ka Adobe Photoshop waxaan hore usoo qaadanay 6 cashir oo ka mid ah course-kan kana waa cashirkii toddobaad ee course-ka barashada Adobe Photoshop kusoo dwow cashirkeeni maanta sidaad arkaysid maanta halkan inooguma muuqdo markaa wax nashqad ah kaliya maanta halkan waxaa inoogu muuqdo qoraalo isku wada mid ah laakiin qaabkay u samaysan uu kala duwan yahay waa maxay sababta ay qoraalkan qaabkiisa u kala duwan tahay ama nashqadiisa ugu horeyn waxaa jira wax lagu magacaabo font hadan ku micneeyo waa nashqada uu ekaan doono qoraalkaaga sida inta kaaga muuqdaba qoraaladan dhammaantood waa markaa kuwo isku wada mid ah oo FN Academy haddana sidaad arkaysid markaa qaabka ay u samaysan yihiin way kala duwan yihiin marka qaababkan ayaa waxaa lagu magacaabaa fontiga uu markaa Photoshopka leeyahay halkan ayaa laga bedelaa oo halkan waxaad ka arkaysaa nashqado kala duwan oo markaa qoraal ah hadba maanta cashirkeeni waxaan ku baranaynaa marka halkan sida loo soo gashto nashqadahan qoraalka ah ama sidaad ugu soo kordhin karto Photoshopkaaga nashqado qoraal ah ugu horeyn marka font sidaan u helno waxaan u baahannahay inaan haysano browser ugu horeyn aan aadno marka waxa browserka lagu magacaabo ama aan aadno Chrome Google-ka markii aan imaado browserkayga kadib meeshan wax laga raadiyo ayaan waxaan ku qorayaa marka website lagu magacaabo marka the font markaan qoro the font kadib waxaan leeyahay searching wuxuu soo saarayaa sida arkaysid wejigan waxaan taabanayaa marka linkigan ugu horeeyo markaan taabto linkigan kadib waxa ii soo furmaya marka wejigan aad arkaysid halkan waa meesha aad ka degsan lahayd marka nashqadaha oo marka qoraalada ah sida arkaysid markaan kor u qaado waxa iga soo horbaxayo nashqado qoraal oo kala duwan marka adigu waxaad raadsanaysaa nashqadii aad u baahan tahay si aad nashqadaada u raadsato meeshan aad arkaysid ayuu marka kugu qeexayaa haddii halkan aad taawato kartoon ay qoran tahay waxa kaa soo horbaxaya marka dhammaan qoraalada loogu talagalay marka disaynada kartoonka ah oo sida arkaysid waxa kaa soo horbaxayo qoraalo marka qaab kartoonid ah haddaad taawato marka halkan kale ay qoran tahay marka comic waxa kaa soo horbaxayo marka qoraalada comiga ah haddaad u baahan tahay marka front Arabic ahna waxaad taawanaysaa halkan ay qoran tahay Arabic kadib waxaad arkaysaa marka qoraalada Arabiga ah iyo nashqadooda hadba waxay ku xiran tahay qoraalka aad marka adiga rabto tusaale ahaan aniga hadda qoraalkan ayaa qanciyay markaan rabo qoraalkan inaan soo degsado waxaan taawanayaa halkan ay qoran tahay download kadib marka sida arkaysid automatic qoraalkii wuu soo degayaa ma aan wax sidaas u badan oo sida arkaysid isla markii uu dhameeyay downloadigi haddii aad u baahan tahay nashqado kalena markaa sidaas ayaad soo degsanaysaa oo waxaad soo degsanaysaa hadba nashqadii adiga ku anfaco markaad soo degsato nashqadaada kadib waxaad u baahan tahay wax lagu magacaabo WinRAR oo in badan aad adeegsan doontaa WinRAR haddii aad tahay qof computer isticmaalayo aan kugu celiyo mar kale si aad WinRAR u soo degsato waxaad aadaysaa halka searching-ka kadib waxaad qoraysaa WinRAR markaad qorto WinRAR kadib oo WinRAR-ka waa kan midkaan aad arkaysid waxaad leedahay download oo halkan aad taawanaysaa kadib sidaan ayuu ku soo saarayaa waxaad taawanaysaa download WinRAR then wuxuu ku sameynayaa inuu ku soo dejiyo WinRAR-kii sida aad arkaysid aniga hadeertan waa haystaa discard ayaan iska leeyahay adiga sidaas u soo degso WinRAR-kana waxaan kusoo sharxay marka cashir hore cashirkaas waxaan kusoo saarayaa qaybtan kore ee videoga halkaas ka daawo aan ku laabano cashirkeeni maanta waxaan soo degsanay hadeertan sida arkaysid marka labada font aan soo degsaday si aan u arko waxaan furi karaa falaadhan oo waxaan leeyahay open ama waxaan sameyn karaa inaan aado marka meesha uu ii geeyay waxaan aadayaa file explorer-ka kadib waxaan kasii aadayaa download sida arkaysid marka labadii font oo ii soo degay waa kuwan si aan labadan font marka u furto waxaan leeyahay right click markaan right click dhaho kadib waxaan tagayaa halkan ay qoran tahay WinRAR adiga waxaa laga yaabaa waxyaalahan inay halkan kuu soo safmaan kaliya waxaad raadinaysaa meel ay qoran tahay marka extract here ama extract file waxaa jira saddexdan qaab waxa marka extract loogu sameeyo waxaan kasoo sharaxnay cashir hore cashirkaas waxaan kusoo saarayaa qaybta kore sida daya kuu sheegay marka aniga waxaan taawanayaa halkan ay qoran tahay marka extract to fileka magaciisa markaan halkaas ku dhufto kadib folder fileka magaciisa ayuu ii sameynayaa waxaan raadinayaa folderkaas wuxuu ii aaday qaybtan hoose markaan folderkan aan soo furo kadib halkan ayaa markaa click ku siinayaa then markuu sidan ii soo saaro waxaan leeyahay install oo ii dhameeyay installationka isla markiiba ma ahan fontiga marka wax sidaas u weyn marka waxaan fiirinayaa magaca fontigan ayaa koobiyeysanaya aan dhaho rename kadib aan koobiyeeyo hadeertan waxaan aadayaa marka Photoshop-ki si aan u hubsano inuu fontigan inoo soo degay waxaan tagaynaa marka text ama waxaan dooranaynaa mid ka mid ah textyadan markaan textyadan highlight gareeyo kadib waxaan taawanayaa halkan meeshan waxaan ku qorayaa marka farti aan soo dejiyay magaciisa si aan fartaas aan u helo hadeertan farti waa kan sida arkaysid adiga marka waxaad sameyn kartaa inaad halkan ka raadiso haddii aad magaciisa aqoon oo marka aad kor u qaado hadeertan aniga waa kan halkan ayuu noogu jiraa marka adiga waxaa laga yaabaa inuu hoos aado sababtoo ah meeshan si alphabetical ahaan ayay u kala hormarayaan marka
cashirkeeni maantana intaas ayuu ku eg yahay. Cashirkan waxaan ku baranay markaa sida foontiga loola soo dego. Isku day markaa aadna inaad foonti la soo degto kadibna aad baraatikayso. Isku day cashir walba halkan soo geli inaad baraatika ku sameyso. Baraatikada waxay kaa caawinaysaa in sheygaas aad u fahanto. Sidoo kale waxaa jiro group WhatsApp aad caawinaad ka heli karto. Waxaan kusoo dhigayaa linkigiisa qaybta hoose. Sidoo kale faylasha aan ku isticmaali doono markaa kooriskan waxaan kusoo dhigayaa linkiga hoose. Halkaas kala deg. halkan ayuu ku eg yahay cashirkeeni maanta. Waxaynu balanahay cashirkan kiisi xigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.